Okay, balan sii wadana qaybtii hore maadaama videoga la ogol yahay ilaa 10 daqiiqo kaliya ayuu meeshii hore ku istaagay. Haddana waxaan aragnaa cagaar inta noo yaala oo qaybaha dhexa ah. Waxaan keenaynaa qaybtan kore. Markaan keenno waxaa noo muuqata in cagaarkani uusan joogin meeshii aan rabnay. Keenitaankiisa intaa waxay ahayd inaan ka fikirno midab kale uu wato inaan fiirino. Hadda waxaan keenaynaa qaybtan hoose ama qaybtan bidix. Markaan keenno waxaan usoo qaadaynaa kor. qaybta bidixaan wareejinaynaa. Markaan wareejino waxaa noo muuqata inuu asna cagaarkii yimid gaduudkiina uu wato. Arrintani macnaha dee muxuu ahaa in aan fiirino mar walba cagaarkaas iyo qaybta la socota, ama waxaan ka wada cagaarkan kore iyo qaybtan kale uu dhanka kasii watahay. Macnaha dee waa muhiim si aan u helno qayb noo samaysan oo kore iyo midabadii geesihiisii uu wato. Hadda kii jaallahana waa okay, kii liimigana waa okay. Hadda waxaa naga maqan hal cagaar oo qaybtan kore waana inuu wataa mid caddaan ah. Haddii aan raadino waxaan ka arki karnaa qaybtan hoose waxaa yaala cagaar dhankana ka wata caddaan. Hadda waxaan u wareejinaynaa, bal waxaan sameynaynaa qayb yaro qalad ah si aan u helno macnaha dee muxuu ahaa faham kale. waxaan geyn doonaa qaybtan kadibna inta. Hadda waxaa noo muuqata qaybihii hore waa okay, laakiin waa helnay cagaarkan caddaanka watay meeshii aan rabno ku jiraa. Inta aan ka ahayn wuxuu ku jiraa orientation qaldan ama qaab fadhi qaldan. cagaarka waa inuu kor maraa, caddaankana qaybtan maraa. Hadda waxaan isticmaalaynaa algorithmkii ama hab howlfulintii ugu horeysay aan sheegi doono. taasna macnaha dee waxay noqonaysaa annaga oo wareejina qaybtan wejiga. waxaan wareejinaynaa wejiga oo qaldan gedisan. waa weji gedisan, ma aha qaybtii furxiritaankii. waa macnaha dee anagoo furayn dhalo furkeedii. kadibna waxaan sameynaynaa qaybta kore oo saxan, waa xiritaan iyadana. qaybta bidix oo iyadana gedisan. kadibna qaybta kore oo gedisan. waxaan sameynay 4 dhaqaaq. 4taasi dhaqaaq oo ahaa midig ama qaybtan hore oo gedisan, qaybta kore oo saxan, qaybta bidix oo gedisan iyo qaybta kore oo gedisan. gedisnaadna waxaan ka wadaa kasoo horjeedkii ama anti clockwise-kii ama counter clockwise-kii, hadba sidii loo yaqaan. hadda waxaa noo muuqata inaan helnay calaamadii aan rabnay isku darka ahayd balaaskii kore. mid walban markaan fiirina aan u hayno qaybtiisii liimiga, jaallaha iyo gaduudka. bal middan hadda caddaanka aan sameynay aan ku celiyo haddii uu ahaan lahaa qayb qaldan. waxaan sameynaynaa qaybtan hore wejiga oo dabagedisan, kadibna qaybta kore oo saxan, waa kore un baan leeyahay markaas. qaybta bidix oo dabagedisan iyo qaybtii kore oo dabagedisan, kasoo horjeedka ama dabagedisnaan invert. hadda waxaa noo muuqata sidii hore intaan qaybtii hore sameyn ka hor sidai ahayd, oo ah qaybtani waxay taallaa meeshii la rabay, laakiin waxay ugu jirtaa qaab qaldan. fadhigeeda qaldan oo cagaarka waa inuu kor maraa, caddaankana hoos maraa. hadduu arrin noocan ay kugu dhacdo maxaa la sameynayaa? waxaad sameynaysaa wejigii oo dabagedisan ama kasoo horjeedka wejiga, qaybtan hore oo kasoo horjeedkeedii. haddii kale waxay noqon lahayd qaybtii saxda ah. qaybtii kore oo saxan, qaybtii bidix kasoo horjeedkeeda, qaybtii kore kasoo horjeedkeeda. caddaanka wuxuu noogu soo noqday meesha aragna. markii aan sameynay qaybtan waxaa noo hartay 4 gees. 4 geesna waxaa qasab inay yeeshaan cagaarkooda. waxaan fiirinaynaa wax cagaara meelaha ma nooga muuqdaan geesahan yaal. waa kii ugu horeeyaan haysanaa. cagaarkan geesaha xiga waxaa qasab inuu leeyahay 2 midab kale. waa 3 midab leh. waa cagaarkaas, caddaan iyo liimi. cagaarka wuxuu tegi doonaa kor. hadda arrinta aan sameyn doona waxay tahay, waxaan raadinaynaa 2 midab ee la socda meel ay ku kulmaan. waxaa la socda kan caddaan iyo liimi. liimi waa kan, caddaanna waa kan. meeshay ku kulmaan aan keenaynaa. waa inuu hoos jira. hadda marka kor ma geenayno weli. marka hore waa inaan hoos keennaa qaybtan hoose. waa cagaar aan kor u rabno, liimi iyo caddaan meesha ku kulmi lahaayeen. waa maadaama uu liimi iyo caddaan kala wato. markii aan kan inta keenna kadib waxaan sameynaynaa algorithmkan ama hab howlfulistan cusub oo aan hadda idiin sheegi doono ayaa waxay tahay iyadana qaybta midig oo kasoo horjeed ah
midigtii wareejinta rasmiga waa kasoo horjeedkeedii midig, hoos kasoo horjeedkeedii midig oo saxan waa midig keliya markaas, iyo hoos waa afartan waa in la sameeyaa, lama kala reebi karo, afarta waa inay wada socdaan. hadda waxaan sameynay inaan cagaarkii kor keenno, qaybtan geeska naga maqnaa, isla markaasna uu qaybtii caddaankana la joogo, dhanka kalena qaybta liimiga la joogo. bal aan raadina mid kale, ma jiraa cagaar kale aan ku aragna meelahan hoose? mid baa inta yaalla oo ah cagaar, gaduud iyo caddaan. isagana waxaan geenaynaa qayb ay caddaanka iyo gaduudka ku kulmaan. gaduudka waa kan, hoosaan wareejinaynaa qaybtiisii, caddaanna waa kan, gaduud caddaan waa gaduud caddaan meesha ku kulmi lahayn qaybtooda hoose. xaggaan u rabaa inuu yimaado kor. hadda waxaan keenay inta, waxaan rabaa inuu yimaado kor. waxaan isticmaalaya isla sharcigii aan hadda isticmaalnay. sharcigan wuxuu qaadan karaa ugu badnaan 5 jeer inuu kuugu suurta galo, ama 2 jeer, 1 jeer, 3 jeer, 4 jeer intuu dhexeysa. 5 waa ugu badnaan, 1na waa inta ugu yar ku samayn kartid hadduu ka maqan yahay. hadda markaa inta keenay kan waxaa maadaama hoos jir waxaan dhihi karaa wuxuu qaadan doonaa 3 ilaa 5 ilaa 4 ilaa 5 intay noqoto. hadda waxaan sameynaynaa marka muxuu ahaa sharcigeeni? midig kasoo horjeedkeeda, hoos kasoo horjeedkeeda, midig hoos, midig kasoo horjeedkeeda, hoos kasoo horjeedkeeda, midig hoos, midig kasoo horjeedkeeda, hoos kasoo horjeedkeeda, midig hoos. 4 jeer aan sameynay. hadda markaan fiirino waxaa yimid cagaarkii qaybtan kore, geesahana ka wato caddaankii iyo gaduudkii. hadda waxaan aadaynaa qaybtan kale wax ka maqan yihiin. hadda waxaa noo muuqata cagaar hoos ma jiro, laakiin waxay yaalaan geesahan labada cagaar ee inta ka maqan, isla meeshii laga rabay yaalaan, laakiin waa qaldan yihiin. waa inaan hoos geynaa si aan isla sharciga hadda u isticmaalno. hoosgeynteedii qaybtan intaan hoos geeyo yaan u bixi karaa dhinaca kale, kadibna meeshadan kusoo celinaya qaybta waa inaysa iga qaldamin. hadda waxaan haystaa marka cagaar, gaduud iyo jaallo wata. qaybta laga rabayna waa qaybta uu hadda joogo, gaduud iyo jaallo, gaduud iyo jaallo. waa inuu hoos yimaada si aan kor u keeno. marka hore inaan hoos keenaa si aan kor u keeno. haddana waxaan isticmaalaya isla sharcigii. tan markuu saanya wuxuu qaadan doonaa 5 jeer oo kala duwan. 5 jeer ayuu u baahan yahay inaan sameyno isla sharcigii ahaa. marka kasoo horjeedka midig, kasoo horjeedka hoos, midig hoos, 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 kasoo horjeedka midig, kasoo horjeedka hoos, midig iyo hoos. 4 markaan sameeyay waxaan muuqato wuxuu nagu qaatay ilaa iyo 5 jeer. waa qaybta ugu dheer, laakiin waa yimid meesha. haddaan waqti ku xisaabtamayna waa inaan waxyaabo kala raadinaa, laakiin hadda muhiimaddeena waxay tahay inaan sameyno sida ugu sahlan. marka imaanshihii waa yimid oo jaallihii gaduudka waa haysanay. hadda waxaa naga maqan 1 xabo, wuxuuna ku jiraa meeshii la rabay, laakiin waa ka qaldan yahay. hadda sidiisaan ku sameynaa isna oo ah kasoo horjeedkii midig, kasoo horjeedka hoos, midig hoos. 4 waa inaan la kala reebin. kasoo horjeed midig, kasoo horjeed hoos, midig hoos. waxaan sameynay cagaarkii ugu horeeyey, qaybtii ugu horreysay aan dalbanay midabka cagaarka ahayd, midabkaan rabnaan dalban karnay. isla markaasna waxaa noo cad qaybtan keliya maanan sameyn. waxaan sameynay tan kor oo dhan midabadan ay saxan yihiin. waxaa noo sii raaca in guduudka soo dego, jaallaha soo dego, liimiga soo dego, caddaankana soo dego. ta gaabanaan haysanaa. hadda markaan qaybtan dhammayna kadib waxaan rabnaa inaan qabanno qaybahan dhexe. waa inaan rognaa. hadduu qofku ku celceliyo qaybihii haddaan soo sheegnay, waa hubaal in uu macnaha hadee muxuu ahaa ay u suurta gasho inuu sameeyo. bal hadda waxaan sameynaynaa mid yar oan idan lahaa goor dhaweyd. waxaa macquul ah in qayb ka yar uu qofkii sameyn karo haddii aan joogno inta. haddii aan haddan idhaahna samey cagaarkan inta jooga qaybtan keen waxay nagu qaadanaysaa 5 jeer, laakiin waxaa jira qaab aan u sameyn karay keliya 1 jeer. hadda waxaan sameyn intii hore waa kasoo horjeedkii hoose. marka tii kore makama bilaabay, kasoo horjeed kore ayaan sameyn, kadibna waxaan sameyn hoos iyo kor iyadoo dabagedis ah. waxay keentay 1 mar aan ku sameyno, laakiin qaybtii hore waxay nagu qaadan lahayd ilaa iyo 5 jeer. waa soo qori doonaa sharciyadan macnaha aan hadda idiin sheegayay.